ilaa 400 qoys oo kamid ah dadka ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya oo deegaansanaya degmada Kaxda ee gobolkani Banaadir ayaa ka faa'iideystay raashin gargaar oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo nolosha dadkaasi dhibaataysan. Muxdiin Macalin Cabdulle ayaa ka waramaya. hay'adda Samsam oo wada qorshaheeda loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gobolada dalka ayaa deeqdan gaarsiisay qoysaskii ugu dambeeyay ee ka soo hayaamay abaaraha ka jira gobolada kamid ah dalka ee ku sugan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. deeqda oo ay ka faa'iideysteen ku dhawaad 400 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa isugu jirtay barbari sokor saliid timir iyo caano iyada oo dadka loo qaybiyay qaarkood Muqdisho ay soo gaareen maalintii shalay ahayd. gudoomiyaha guddiga gargaarka ee hay'adda Samsam Cabduqaadir Maxamed Hiraabe ayaa sheegay in hawshan lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ay qayb ka tahay dadaallo hay'addu ay ka wado gobolka kamid ah dalka oo dadka danta yar lagu gurmanayo ayadoo ka jawaabaysa baahida guud ee ka jirta dalka iyo abaaraha barakacayaasha guud ahaan ku dhuftay gobolada dalka Soomaaliyeed waxay juhdi weyn ku bixinaysay bishan oo dhan inay ka qaybiso gobolada inteeda badan raashin iyo dawo iyo biyo dhaamin intaba sida maanta oo kale waxay ka socotaa gobolka Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe Baay iyo Puntland goboladiisa bari Sanaag Nugaal intaba raashinka halkaas ku qaybinayno waxa uu isugu jira halkan arkaysaan bariis bur sokor caano iyo saliid iyo timir oo aan isleenahay in kamid ah dadka dhibaataysan ayay wax tari doontaa muddo bil ah inkastoo markaad aad u eego barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda aysan intaan iyo in ka badanba in la egbay wax u taraynin haddana waxaan isleenahay wax weyn ayay u qabanaysaa. gudoomiye ku-xigeenka degmada Kaxda Cabdinaasir Xasan Cali ayaa tilmaamay in hay'adda Samsam kaalmadeeda ay ku soo beegtay xilli dadku ay u baahnaayeen. Samsam walaalayna ay wakiil nooga yihiin mu'asasadaas oo aaminsanahay inay wax badan amba aan ognahayba inay ka qabteen barakacayaasha ku nool degmada Kaxda bishan kaliya markii la qabto hadda waa tookadii afraad ay wax ka bixiyaan waxa garab taagan biyo dhaamis joogto ah oo maalin kasta ay timaado booyad biyo ilaa iyo 12 sano ay caawiso ummadan dhibaataysan. qaar kamid ah dadka barakacayaasha ah ee ka faa'iideystay deeqda ayaa u mahadceliyay madaxda Zamzam Foundation oo samafalkaas u sameeyay. wuxuu ka kooban yahay raashinka leeyahay bariis sokor bariis bur caano booro timir saliid iyo nabad iyo qayb iyo barwaaqo Allah siiyo maanta waxaan la siiyay sokor bariis bur timir saliid caano booro hay'adda Samsam Foundation oo insiisay maxalli aad iyo aad ugu mahadnaqayna waxyaabaha lagu siiyay maxaa kamid sokor saliid caano booro bur bariis timir saliid degmada Kaxda oo maanta hay'adda Samsam ay raashin qaybin ka sameysay waxa ku sugan dadkii ugu badnaa ee ka soo hayaamay abaaraha ka jira gobolka kamid ah dalka ee soo gaaray magaalada Muqdisho. Muxdiin Macalin Cabdulle, TV, Muqdisho.